dhawaanahanba waxaan si weyn ula soconay xaaladda laascaanood iyo halka la kala marayo wasiirka warfaafinta ee Somaliland Salibaan Yuusuf Korre ayaa waxa uu booqasho ku tagay laascaanood isagoo halkaasi dadka ku sugan Cuqaasha iyo weli dhalinyarada la qaadanayo kulamo sidoo kale waxaa wafdigaasi la socda ama hogaaminayay Cabdirasaaq Khaliif oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland laakiin kale shacab cariisan ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen mid ka tirsan askarta Somaliland sida baraha bulshada muuqaalkiisa la wadaagay haddaba dhanka kale odayaashii 33 ahaa oo hadda xaaladdu ku adkaatay kadib markii ay kala furfur lagu bilaabay barnaamijkan ayaan guud ahaan ku falanqeyn doonaa halka ay wax kala marayaan iyadoo waliba kacdoonka oo hadda meelo kala duwan uu gaaray iyada oo degmooyinka iyo tuulooyinka iska kala gooshiya barnaamijkan waxaa qayb ka noqon doona isma kale ila falanqeyn doona saaxiibkay dafli arrimaha si weyn oo la socday marka hore soo dhaw marka xigaaday aan ku bilowno waxaan in badan aan tabinay in kacdoonka ka socda gobolka Sool in la doonayo in la kala furfuro halkaasi waxaa gaaray wufuud ka socda Somaliland oo ugu tunwan yahay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdirasaaq Khaliif iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta ee Somaliland Salibaan Yuusuf Korre haddaba kulanka ay la qaateen odayaashiisa ay sheegeen maxaa ka soo baxay waan mahadsantahay midna bidhaan waan ku dhaw barnaamijka sidaad ogtay maalmo hore waxaan arrinta waan ka sheekeynay oo waan tabinay waxyaabaha aan ka baqay horta ama aan hore aan u soo sheegay way muuqdaan in la kala furfuri doono odayaashaasi oo laga yaabo barnaamijkii ugu dambeeyay ka hadlay waxa kamid ahaa in laga yaabo nimanka reer galbeedka inay soo dhaxgalaan arrintaasi yaa suurowda maanta ninkan wasiirka warfaafinta ee loo yaqaano Suleymaan Yuusuf Ali Korre iyo ragii farabadna la socday ee kamid ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ninka loo yaqaan Cabdirasaaq Khaliif Ahmed iyo rag kale oo ayaga tiro badan halka magacooda tiro badan hadda aan haynin ay ku jireen waxyaabaha ka hadlayeen dabcan wixii hore aan u sheegay waxaan sameeyay wax la yiraahdo hordhac oo predicti ama saadaalin baan sii sameeyay saadaashin way ii muuqataa laakiin waxaan hadii aysan odayaashaasi 33 oday ee iska qabtay reer Sool sanaga cayn odayaashii beelaha dhulbaantiye fiqishine iyo xanta gabayo ku soo beeray waxyaabaha ay dhaheen nidaamka iyo systemka iyo haykalka reereed inay masiirka umadeed ay ka tashanayaan hadii ay ku tilaabo qaadaan horta meel bay mari doonto kii aan dhihi jiray laakiin waxaad moodaa in la kala furfurayo oo dadku waa dad iska Afrikaan in wax loo sheegayo ama dhaqaale ha noqoto ama masab ha noqoto ama wixii lamid ha noqoto in wax loo sheegayo waxa kale oo bidhaan oo aad ku darsataa deegaamada SSC intooda badan kacdoon ka socda waa kii arkisay askari booliis oo Somaliland inay dhalinyaro maanta ku soo xoomeen oo marka daba oo cagihiisa oo maalay arkisay soo daba garanin cagihiisa oo maalay wada arkisay marka askarigaasi waxa arkaynay isagoo dadka ay ku soo xoomeen isla markaana ay leeyihiin ay ku arkeen calanka Somaliland astaanta oo ah ay ku haysteen ay leeyihiin see mataqaana adigoo wata calanka Somaliland aad mataqaana aad gobolka aad u iman kartaa oo kale marka askarigaasi way jiidayeen askarigaasi askartu waxay magaalada laga bixiyay see u suurtagal soo gala magaalada way kala bidhaan oo askarta laga saaray meeshii askartan kale askarta booliiska way shacabku may kamid yihiin waxay lagu tala booliis waxa lagu talagalay dumarkii iyo waxyaabaha tuugadii wax noocaas ah in ay qabtaan oo la dagaalamaan horta lagu talagalay dad galama aha booliis shaqada waxaas weeyaa wixii tuugi wax adigu haweenka kamid yihiin marka nimankan dhalinyarada caraysnaana calanka Soomaaliya ee booliiska tuutaha qaba ayay horta xasaasiyad ka qabeenba saadarteed wakiil bursanay arkaysay wadada laamiga lagu eriyada waa arkaysay marka arintaasi marka waxay sheegaysaa dareen ay ka turjumaysaa meesha heer kulkooda shacabka dhalinyarada in meeshii gaarsiisan yihiin ayay horta ka turjumaysaa hadii aan kala ugu daro wixii arkaysay meelaha daaraha dhaadheer in calanka dawladda federaalka Soomaaliya calanka buluuga shanta xidigta lahaa iyo calankii Khaatuum ee fars ku sawirnaa meel kasta in laga soo dhahayo oo arkaysay bidhaano marka shacabka waad garan kartaa meesha ay marayaan aan u soo noqono shirki shirar kala duwan markaan ay galeen
sida Saleebaan Koore isaga mataan uu sheegay wasiirka warfaafinta oo uu yiri cuqaasha iyo dhalinyarada haldoorka reesol baan la hadalnay wax badan baan isla qaadanay makula tahay kulankaasi ay la qaateen inuu ah kulan sax ah markaana meel dal noqon doono ama dadka ila shireen dadka dad noocay baayeen okay horta saad waqti waxa waa war saxaafadeed ama waa baraha bulshada waxay u badan tahay dadka reer Somaliland ah inay qoraan hawsha iyo iska suuragal ah hadii bogis rasmi ku qoray midana iyada waa arkayay hatta hadii uu ku qoray saad ogtahayba ninkan wuxuu ka turjumayaa beel Somaliland wax isku darsatay asna beel buu ka turjumayaa maadaama uu ka turjumayaa meeshuu ka yimid Hargeysa ahayd dad wax ku darsaday baa la yiri ordo kulli dabcan maadaama aad tahay wakiil beeleed aad meesha ku joogto baxtag dadkii aad ka dhalatay u tag saad ogtahay bidhaano waxa Soomaali kuma maadaa nin baa naag furay baa leeyahay nin naag la furay baa fadhiyo ma yaalo ninkii furayna fadhiyo falkii ku laabay ninkan shaqadii uu hayay shaqadii way dhoobowday oo way carqaladooday marka fadhiyo ma yaalo marka dadku waxay ku khasbisaa geed dheer iyo geed gaaban inuu u fuuro sidii uu xalin lahaa oo shir mid dhal ah uu sameyn lahaa oo odayaasha waxa uga dhaadhicin lahaa waxana uu sameyn lahaa wuu ku khasban yahay si kastoo ay haataba maadaama uu yahay nin dawlad Soomaaliland matalaya oo dadkiis u matalaya marka dadka cadeysna kama soo hor imaanin meeshii dadkii meeshii sool buu imaaday odayaashii cuqaashi iyo dhalinyarada iyo ganacsatada la hadlay si uu sheegayo oo la shiray wuxuu ku khasbay inuu la shiro ilaa xad inta ay maartay mirdhal ka helay ama diido ama aqbalitaan oo ka helayo wuu ku khasban yahay dadka sidii doonaa inuu fikrad kasta uu ka dhaadhiciyo oo uu u sheego midnimadka iyo dadnimadka iyo haykal dawladnimo in la ilaaliyo wax kasta oo boogo taqatayna dib baa loo dhayi doonaa oo wala xalida wala daweynaya marka waa inuu maxalli jiirku markuu qofka asoo jif u yimaado waxa la inuu qalino waa afuuf yariin afuuftaas waxa weeye boogti xanuunkii ayuu xanfafta ka biyinaya marka wasiirkan waa loo soo diray inuu xanfafta ka biyo dadkan daalane oo inahay dadkii laga laayay kacdoonka wada saas weeyaan dhanka kale hoteelo waxaan ogeeyay hore degniin loo siiyay haddana dhowr hotel oo og yahay maanta ay shirar maanta ay ka socdaan ilaa hadda caawa baraha bulshada waxaa ay degniin maanta kala duwan in la siinayo makulanta hoteeladaas inay u hogaansami doonaan awaamirta ka imaanaya kacdoonka shacabka reeso okay niyool mahadsan bidhaano hoteeladan sida shay waa laba hotel ba waliba uga caansan hoteelo loo yara Casura iyo Xamdi labada hotel waxay ku tilmaameen hoteelada dimidaabinta reeso leesanagi ay ka socoto ay horta dadku ku tilmaameen hoteelada dabcan marka diirada dadku shacabka iyo dadka in qayb gaar oo arinta dabcan ay u xirsaareen hoteelada ku hayaan marka markasta meeshaad ku taalo buqcadaad ku taalo meeshaad ku taalo hoteelku meesha ku yaalo dadka waxay sarrabin in uu u hogaansamo danta ku jirta hadii uu u hogaansami waayo waxa dhici doonta in hoteelkaasi lagu yaaco oo la riiqo oo khasaare weyn loo geysto oo si kasoo kaban doonin ayaa dhici doonta hoteelka marka waxa lagu qabtaa shirarka hoteeladaasi saad ogteen marka madaxda ama dawladaha waxay hay'adahu hoteelada horta iyo shirar ku qabsadaan sababta hoteelku waa meel amni oo maartay amnigiisu sugan yahay oo biyihiisi iyo cuntada iyo ciidan ilaaliyo wax kasta horta uu leeyahay facility dhaba u dhameystiran saadar hoteelkan marka uu ku khasban yahay inuu horta shir qabto oo dadkii ay ku soo degaan horta uu ku khasban yahay hase yeeshee markasta waxa ka awood badan dadka shacabka ay deegaanka ku nool dareenkooda ka awood badan waa inuu ilaaliyo shucuurtooda inuu ilaaliyo waa khasab weeyaan ugu dambeyn maxaad matala fariinta halka ka direysay ku saabsan kacdoon kala ka socdo Somaliland iyo hadwayseystaan soo dhisanay gacayn bidhaano kullay waxaan aan leeyahay saddex qodob horta leeyahay qodobka koobaad dad shacab oo horta meesha la dulmin horta jooga dadka shacabka aayahooda horta iyaga iska leh gurigaad horta cid ku xaqi horta ma jirto marka nimanka dhul bahante ha noqonin dad doona qaatayaale meesha dantiina ku jirto raaca hadii maamul goboleed noqonaysaan iyada marka inii fiican hadii aad dawladdiina ka soo tagteen aad ku beerasaan oo wax kala saxiixanaysaan waa mid muhiim ah bidhaano aan ku mid kale aan kugu daro maanta shirar xakamida reer Somaliland iyo dadkii wakiil iyo maartay xildhibaan iyo odayaal dad cuqaal ah ayaa hoteelo shirar ku qabsa Hargeysa kamid tahay waxyaabaha ka hadlay waxa kamid ah waxa ay lahaayeen madaxweynaha waa isaaq bay yiraahdeen
taliyaha ciidanka waa isaaq maayarada waa isaaq taliyaasha waa isaaq agaasimayaasha waa isaaq maxaan dadka ugu yeedhinaa bay yidhahdeen marka muuse bixiyo annaka inaanan raaligelisa maahe waa inaa wada tashi ee isha wada jirka somaliland waa inaad maarata raaligelisa ayay yidhahdeen laakiin afrikaanka dhamma saasaba markaas afrikaanka uu joogaba inta badan dadkiisa mataan ayuu dhiba jawaabiisa waa sax waxay kale ku dareen aan sheekada sii watee dadkaasi aad ummadaasi waa in laisku wadaa maaha somaliland inaad kala dirta maahe waa inaad isku haysaa midda hadda i weydiisay afrikaanka innaka hadda soomaali waan kasii xag jiraayo dabeecad waxaan le xukun jacayl marka waa kaad garanayso nimankii Saddam Hussein ahaa ninkii Muammar Gaddafi Zayn al-Abidin Ali Abdullah Saleh Yemen waxaas oo kiyaat waxaad moodaa inay iska leeyihiin meesha oo shacabka kan kale Djibouti Ismaaciil Umar Geelo ka artay iska haysta meesha aad moodaa guriga asab iska leeyahay shacabka reer reer Djibouti gaajaaleen mid qaxa iyo mid xabsiga ku ura iyo mid dadkii way baaba'een nolol ma haystaan marka xukun jacaylku way jirtaa haddana Soomaaliyana waa ka artay oo maamul goboleed loo sameeyo reer beel ah beel ka sameeyay meel bay iska leedahay oo dhidibada ku aasatay marka saadarteed way ku khasban yihiin marka maadaama mushkilad ay dilaacday inay manage gareeyaan oo maamulaan oo ay dadku maxaa deeqda cadaalad nolol ma deeqdo dadka la cadaalad horta deeq badhaano dadka waxa u baahan marka ninkaliya Muuse Bixi horta waqti horta uu soo dhaafay uu dhamaaday waxa uu haystaba waa khalad laakiin inkastoo hadda aan arkay xisbiyadii tartanka oo hadda meel badan gaarayo oo calaamada ruuxayaan arkay laakiin maxaa bal ruuxa muslimiinta taagan bay waka weyn ma santahay daawadayaal intaas aan ku soo afeeyay barnaamijka kooban ee ku dulmeereynay xaaladda laascaanood ee habeenimada caawa ilaa iyo maanta wixii ka qabsoomay ee shirarka halkaas ka socday muuqaalka sheergala sabtiin la wadaaga waa ma santahay